marka sidaas waxa loo baahan yahay walaalayaal dadkii saadaadka ahaa ee ahlullaahiga ahaa oo tasawufka ku hormaray sida axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u yaqaaneen waxaa la rabaa maba la gaari karo dadkaas in raadkoodii la raaco oo nin walba oo suufiya uu isku dayo inuu axaadiista midkooda saxiixa kan daciifka kan maqduuca kan mawsuulka kan marfuuca kan maqduuca inuu kala fahmo oo uu kala saari karo ila waxa suufi lagu yahay waxa weeye الإمام الجنيدي رحمه الله تعالى سيد الصوفية علما وعملا محديه جري عملنا هذا مشيد بالكتاب والسنة أنك عمل كأن التصوف كاه وحو كل سنهي كتابك إيا السنة وفك مركا كتابك إيا السنة إيا شريعة إسلامك أنا قول أولهين لوغا مدى ينكرو علمك التصوف كسوفين على مدى ينكرو إمام هقامية التصوف كرمان نقن كرو سيداس يعني إيديه جرين علمدي وويناء وكمي جنيد البغدادي marka waxa loo baahan yahay qofka yaani tasawufka ama suufinimada sheeganaya inuu aqoon dheeraada iyo baac dheer uu leeyahay diintiisa islaamka oo xambaarsan yahay maadaama hadda aad garanaysaan Sayyid Ahmad ibn Idris magaalada Makka al-Mukarrama markii uu tagay in lagu imtixaanay ahadiis mawsuula maqduuca iyo daciif iyo saxiix dhamaantoodna uu kala shaandheeyay sheekh saasay ahaayeen dadkii hore ee saadaadka tasawufka sidaas ay ahaan jireen waa in marka raadkooda la raaco ayagina lagu daydo waxa kale jiray hada ka hor munaadaro ama dood dhex martay السيد أحمد بن إدريس iyo qolo mubtadica ah oo mubtadicada wahabiyada la yiraahdo ku dhex martay magaalo la yiraahdo Casayr meeshaas hada ka hor ku qofkii raba doodaas oo faahfaahsan kitaabkan hadda anigu muxaadarada aan ka jeedinayo Anisul Jaliis leeyahay wuxuu ka soo xirtay nin la yiraahdo Xasan ibn Ahmed Aakish ee geeriyooday 1290kii ayaa doodaas qoray Sayyid Ahmed iyo dhaxmartay ninka mubtadica ah kitaabkan Anisul Jaliis kitaabku uu ka soo xirtay sheekh uu ka soo xirtay la yiraahdo Xasan ibn Ahmed Aakish dadka la doodayay Sayyid Ahmed waxay ahaayeen saddex Nasir al-Kabbi iyo Abdullah ibn Surur iyo Abbas ibn Muhammad al-Rafidi saddexdaas nin loo soo diray la dooda sheekh waxaana saddexdan nin la socday mubtadicada ah jamaaco iyaga ayidsan doodii marka waxay ku bilaabatay qoladii mubtadicada ahaa nin kamid ah wuxuu yiri السيد أحمد محل له يراه الشيخ نورت سيد مو بنانا وحن إلهي يدهين إلا به مو بنانا ير وحن إلهي يدهين إن سيد ليرا ما دهلان وير الشريف أحمد ما دام لنا أشرافه وياه الشريف أحمد له ير أما أحمد بن إدريس إسكر له ير سيد ككداي مركز وحو ير الشيخ وحو كير سو النبي عليه الصلاة والسلام wiilkii awoowaha u ahaa oo Faadima ay dhashay Xasan la dhihi jiray soo ma uusan oranin in nabni hada sayyid wiilkaygan yar waa sayyid marka xadiiskaas waa xadiis Bukhari iyo qeyrkiisu ay warinayaan wuxuu tilmaamay qofka ahlul khayrka in sayyid la oran karo soo nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma dhihin Sa'd ibn Mu'aad markii uu soo socday أنصارتي سو نبي وكمدهن عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم سيد كينا ويستاجع سو مدهن مركب مسألة سلاس أيو هذا هو تحقيقي شيخه مركب سوحو يرينك مبتدع هاي الأورنجري الناصر الكبي هذا الكيس وحو قبل باللاودي وحو يري بدكو وحي كجر جيران جاهليو أصنام أي عابد جيران حرامته أي حلال ويقانين وحنا بدك جهل كساري الشيخ محمد بن عبد الوهاب مركز السيد أحمد بن إدريس وحوير ورمحاد وديه ويسي انت محمد بن عبد الوهاب ضد جهل كساري لا هاي إلهي وحصو صاري رسول كيس ودورتي محمد بن عبد الله إساقانا ضدك جهل كساري يا جهل كساري markaasuu ninkii kabdi ahaa ee mubtadica ahaa wuxuu gaalnimada weyn waxay kala gaartay adduunka oo dhan waxa ay ka ridoobeen islaamkii
qoraxdu meesha ay ka soo baxdo dadkii way gaaloobeen uu yiri haddii uusan jiri lahayn sheekh maxamed bin cabdilwahaab dadku mugdigii ku jiri lahaayeen markaasuu wuxuu ku yidhi asayid axmed ibnu idriis ummadda muxamediyada oo dhammaantood lagu wada xukumo gaalnimo taas waxaa ka hor imanahaya adilada iyo axaadiista go'an oo ka sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna nabigu ka warramay buu yidhi ummaddiisu inay tahay ahluljannaha niskood in ummaddiisu ay tahay ayuu nabigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo ummaddiisu ayagoo ummado fara badan naga horreeyeen oo aan cadad lahayn ayaa ummadda muxamediyadu ay nis ahluljanna tahay marka aduguna waxaad leedahay ummaddii nabi maxamed oo dhan waa ridowday marka niyahow hadalkaaga ku miisaanka sharciga ee hees ka hadle ayuu sayd axmed ku yidhi wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa ee naasirulkabi adiga sayd axmedo waxaad aaminsan tahay caqiidadii ibnu carabi oo qabay ifkan waxa joogaa waa ilaah bis oo wax kaloo jiraa ma jiraan eeyuhu waa ilaah doofaaradu waa ilaah dadku waa ilaah ninkii qabay caqiidadiisaad aaminsan tahay markaasuu wuxuu ku yidhi sayid axmed ibnu idriis ibnu carabiga aad caayayso wuxuu geeriyooday 638 taariikhii hijriga adiga iyo ibnu carabi waxa idin dhaxaysa wax ka badan 500 oo sano ayaa idin dhaxaysa sidee ku ogaasatay inuu hadalkaas yiri inuu si caqiidadaas aaminsan yahay maadiga la kulmay oo warkaas ka soo wariyay sidee ugu been abuuranaysa sidee xalaal kuugu noqotay aad ku toorto annagu waan hubnaa inuu ibnu carabi islaam uu ahaan jiray marka wax xaqiiqa ah dhaba hadii aadan la imaanin gaal idris markaasuu wuxuu yidhi ninkii mubtadica naasirulkabi caqiidada ibnu carabi aan ka sheegahayo kutubtiisay ku qoran tahay si sax maxaad u inkiraysaa sayd axmedow markaas oo yaa kuu sheegay waxaa dhici karta in kutubta dad cadowgiisa ay ku qoreen ee inuu asagu hadalkan gacantiisa ku qoray yaa kuu sheegay buu yidhi soo ma dhici karto dad cadowgiisa inay hadalkan qoreen haddii xataa hadalkaas kutubtiisa aad ku aragtay waa inaad tiraa buu yidhi hadalkani waa gaalnimo laakiin ma aha inaad tiraa ibnu carabi waa gaal adigoon hubsan inuu hadalka yidhi yacni in la yidhaha waxdatulwujuud waa gaalnimo waad dhihi karta laakiin haddii inuu yidhi ibnu carabi waa gaal adigoon hubsanin inuu hadalkan isagu uu ka soo baxay midda kale wuxuu yidhi qolo welibaahi waxay leedahay istilaax iyaga u gaara marka hadal aadan garanayn oo aadan fahmi karin ha gelin buu yidhi wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahay naasirulkabi sheekh axmedow dadka xertaada ah gacmaha iyo lugaha ayay kaa dhinkoodaan aad ayayna kuugu khuduucaan arrintaasna ilaahay unbaa xaq u leh in laysu dullayo loo khuduuco taasu sow gaalnimo cad ma aha iyo inay dadkaagu ku caabudaan sayd axmed ayaa yidhi haddaad tahay nin sharciga aqoon u leh dhegayso waxaan ku leeyahay waxaa xadiis saxiixa ku soo arooray wafdigii cabdulqays markii ay rasuulka u yimaadeen sala allahu calayhi wasalam inay rasuulka labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood ay dhunkoodeen ee ma nabigay caabudeen dadkaas hadday cibaado tahay dadka ahlullaahiga ahlu khayrka ah ee gacmaha iyo lugaha laga dhunkoodo ma nebi maxamedaa la caabudi jiray ilaa nebi maxamed ayaa gacmaha iyo lugaha laga dhunkooday waxaad kalood og tahay buu yidhi kitaab dhan in laga qoray jawaazu taqbiili ilyadayn warijlayn labada lugood iyo labada gacmood inta dadka ahlu khayrka laga dhunkoon karo kutub dhan ayaa laga qoray axaadiis fara badan ayuuna sheekhu arrinkaas uu u soo arooriyey barakaysigu waa gooni cibaadaduna waa gooni waxaana isaga kaa yaacay barakaysiga iyo cibaadada ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilaahay dadka ahlulcilmiga darajadooda kor ayuu u qaaday nabiguna wuxuu yidhi buu yidhi sheekhu sala allahu calayhi wasalam laysa mina man lam yacrif licaalimina xaqah annaga naga mid maaha qofka sheekha caalimkaa xaqiisa aan garanin oo aan qadarinin naga mid maaha xaqa caalimkana waxaa ka mid ah in gacmihiisa la dhunkoodo ayaa xaqa caalimka ka mid ah caalimkana ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa intuba weyneeyeen marka in la weyneeyo shareecada islaamka ayay ku soo aroortay
waxaana ka sugnaaday nabigu inuu yidhi sala allahu alayhi wasalam alculamaa warahatu alambiyaa culimmadu waxay dhaxleen ambiyada ayuu yidhi. marka ninkii mubtadica ahi naasirulkabi wuxuu yidhi kolley annaga agteenna arrimahan oo kale in qofka sheekhaa gacmaha iyo lugaha laga dhunkoodo gaalnimo ayaan u naqaan buu yidhi. markaasuu sayd axmed wuxuu ku yidhi subxaana allah oo wafdigii cabdulqays inay nabiga dhunkoodeen ayaan kuu keenaye nimankaasi ma gaaloobeen nabiguise dadka ma wuxuu amri jiray gaalnimo iyo shirki. war intaasoo adilla ayaan kuu sheegay oo kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga ah sala allahu alayh wasalam markaasaad weli taagan tahay annagu shirki ayaan u naqaanaa. tani sow ma aha baadi cad ood ku sugan tihiin nimankiina mubtadicada ah. naasirulkabi oo mubtadicii ah ayaa aad intuu u carooday wuxuu yidhi gaalnimoo dhanba waxay ku aruursan tahay duubkaagan iyo cimaamadaadan weyn ood wadato ayaa gaalnimoo dhan ku dhex jirtaa buu yidhi. markaasuu sheekhu ku yidhi gaalnimadu hadday tahay midda adigu aad aaminsan tahay ilaa adigu waxaad u taqaanaa gaalnimo wixii madhabkaaga iyo caqiidadaada kugu khilaafa ayaad gaalnimo u aaminsan tahay. waxa aad aaminsan tahay haddii gaalnimada aad sheega ay tahay waxba naga dhibi mayso yidhi haddaad doonto gaal noo aamin. laakiin gaalnimada shareecada waxay u taqaano haddii aad ula jeedid annagu isku hubaal iyo yaqiin rasmi ah waxaan u aaminsannahay in aan ku xididaysannay tawxiidka. adinkuna wuxuu yidhi nimankiina mubtadicada ah waxaad diin ka dhigateen kitaabkan la yidhaha usuul oo adinku aad qorateenoo qoraallo yaryar oo shayuukhdiina idiin qoreen ah iyo kitaabka la yidhaha alqawaacid. markaasaad u malayseen diinta dhan iyo kitaabka iyo sunnadu inay kutub tahay rasaa'ilka yaryarka ah ay ku kooban tahay ama ay ku jirto ayaad u malayseen ama waxa kutubtaasi qorayso inay diin tahay ayaad u malayseen buu yidhi. markaasuu wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa adiga sheekh axmedow qur-aanka waxaad ku fasirtaa wax luqadda carabigu aysan oggolayn oo tafsiir carabiyaddu aysan oggolayn ayaad isaga fasirtaa qur-aanka. ilaahayna wuxuu yidhi innaa jacalnaahu qur'aanan carabiya qur-aanka carabi ayaan ka dhignay. sow ma aha taasi bedelaad kitaabka ilaahay aad beddelaysa. sheekhii ayaa yidhi sayd axmed xaashaa lilaah ilaahayaa xumaatoo dhan ka dheer mana bannaana qur-aanka in lagu fasiro carabiyada wax khilaafsan. waa tanaa tafaasiirteennii way qoranta aayaadka ilaahay annagu aan ku fasirnay dadkuna way wada garanayaan. annaguna qur-aanka waxaanu ku fasirnaa luqada iyo carabiyada daahirkeedu siday keenahayaan ayaan ku fasirnaa. waxaan annagu aaminsannahay waafaqsan laga maarmaan inuu yahay. suurtagalna ma aha qur-aanka in la dhex galo qof aan ogaanin carabiyada aan aqoon u lahayn. qofkii sheegta qur-aanka ayaan sir hoose aan carabiyada iyo luqada aan u soo marinna inuu beenaale yahay ayaan aaminsannahay. wuxuuna la mid yahay qof yidhi gurigii ayaan galay albaabkiina waa iga xihan yahay wuu la mid yahay taas. maca daalika annagu ma inkirayno allahu tacaala macaani uu uga furi karo dadka ahlullaahiga awliyada ilaahay ka mid ah ayuu yidhi sheekhu. wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa labada ragco oo sheekhow aad tukataan adiga iyo xertaadu salaada maqrib inta aan la tukan aadaanka iyo aqimka maqribka inta u dhaxaysa labada ragco sunna oo tukataan xagee ku soo aroortay diintase ma ka mid tahay. wuxuu yidhi sheekhu labadaas ragco oo markii maqribka la addimo sunnada la tukado nabiga ayay ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam isagaa tuka jiray ummaddiisana asagaa amray dad tukanaya intuu arkay ayuuna nabigu yidhi waad ku saxan tihiine sii wada. marka waxayna ka mid tahay sunnooyinka laga soo guuriyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiisa saxiixa ku sugnaatay. haddii adugu aad aragtay dadkii oo sunnadaas ka haajiray oo tukan waayey ha ku raacin dadka ee sunnada saxdaa adigu raac. annagu mana odhanaynu yidhi sheekhu labadaas ragco waa waajib laakiin waxaanu leenahay waa sunno axaadiista nabiga ayaynu ku soo aroortay sala allahu calayhi wasalam. wuxuu yidhi ninkii mubtadica ahaa sayd axmedow dadka asxaabtaada iyo xertaada munkaraad fara badan ay sameeyaan uu yidhi munkar fara badan ayay sameeyaan. qaarkood waa tuuga waxbay xadaan qaar waxbay maaragtaahay xantaan qaar waxbay caayaan qaar waxbay aflagaadeeyaan dadkaagu akhlaaq ma leh ayuu ku yidhi. markaasuu sayd axmed bin idriis wuxuu ku yidhi maniga dadka xertayda ah ayaa khayr badan
مثل أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام كي كبقى مبتدع وحيري أصحاب النبي محمد خير بدنات صلى الله عليه وسلم قرنيال كودنا أيها هو خير بدن سيد أحمد وحيري ما أخرس القرآن كريم كاه وحيري نيك مبتدعها ما أخرس آيات القرآن كاه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة نيك الزنيستي قبل زنيستها لجادلوا ما أخرس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ما أخرس ومن يعصي الله ورسوله ما أخرس ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إيه آياتها لم يتكاه ما أخرس خمرة آياتها كهد الهية وحير هاوان أخري وحير آياتها سيسوماهن السبب أي كسو الدقين سوما لهن أسباب أي كسو الدقين سوماهن داد حلقا جوغي وانتي خمرة عبين آيات أي كسو الدقين انتي وحدين قعمها لقبقوا حلقا نبيك سوما جرين وحير ها وحير أنبياء أمبا دنبقة هل دنبي أن لهين معصوما لغا دوري لكن دادك كالي خلطات ويقلي كران حلقا نبيك أيانا داد خلط قلي جرين marka ma waxaad leedahay xilligii nabiga kaleey salaatu wasalaam khalad way dhici jireen haddana xirtaada ayaan khalad lagu arkin meel leedahay ayuu ku yiri sheekhay marka wuxuu yiri madaxa ayuu raariciyay ninkii mubtadica ahaa markaasuu sayid axmed ibn idriis wuxuu ku yiri dadku waxbay ka sheegaan buu yiri waxbay dadku ay ka sheegayaan oo fara badan oo ardaydaadii xirtaada ay ka sheegaan waxa dadku ay naga sheegayaan adiga miyaad ku aragtay mise qof lagu kalsoonayo marqaati ayaad u haysaa markaas uu anigu idinkuma arkin markaas uu Axmed ibn Shaydaanku qofku qalbigiisa ku yiraaha qofkaas inay xun tahay aamin hadhowna hadii lagu weydiiyo waxa tiraa dadkaas sida lahaa marka shaydaan ayaa kugu qaraabtay buu yiri oo ka shaqeeyay markaas aad hadalkan ku sida u tiri hadaba qaybtii ugu horeysay ee taariikhdii Sayyid Ahmed ibn Idris ayaa halka inoogu dhamaatay muxaadarada ku saabsan taariikhda Sayyid Ahmed ibn Idris waxay noqon doontaa muxaadaro israac raacdo musalsala insha Allah ta'ala hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.